mujtamacii gumaysiga miinsaad ku saaro marka caddeeyey ma nabadba dhulkii beeraha badnaayo mooskiiyo bambeelmada lagu manaystayey marka caddeeyey ma nabadba magaaladii dalxiiskiyo masnooyinkii lagu xaay marka caddeeyey ma nabadba dadku muruqa maaliyo xalaal miiradka ahaayo marka caddeeyey ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka caddeeyey ma nabadba waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM oo soo celiyay sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in cidna cabsiin karta aanay jirin cidna aanan ka baqayn cid aan ka baqayna ma jirto inta ay noo joogaan wiilal yar oo geesiina oo sharaftooda iyo karaamadooda halkaas tahay intay noo joogaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiinta haddii ay qof aaminsan tahay in madaxda la cabsiin karo waqtigaas waa la soo dhaafay cadow iyo khawaarij ka baqmayna intaad idinku noo joogtaan shacabkeennaana farxad kula caweynaynaa magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato magaaladii dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxaa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo Afrika iyo Aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato astaantii taariikhda ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan idinkugu yimid inaan idiin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqeyno inaan dib u soo nooleyno sababtu waxay tahay rajada iyo sharafta maanta aan ku noolnahay waxaa dhaliyay idinka iyo ciidankiina oo iskaashaday iskana difaacay cadowga iska xoreeyay yirina waxaan soo celinaynaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno reer Marko iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaanta cusub ee qarannimada ummadda Soomaaliyeed waa idin garab taaganahay waa idin mahad celinaynaa waa idinkaga mahad celinaynaa dib u heshiisiinta wada noolaanshaha xasiloonida aqbalaadda in la aqbalo in laga gudbo dhaqankii hore loo gudbo dhaqan cusub reer Marka hormuudka ah Markoy waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose in cadowga laga xoreeyo dhammaan degmooyinka gobolka Baay iyo Bokool inay xor ahaadaan waxaan rabnaa reer Koonfur Galbeed inay noqdaan hormuudka dawladnimada iyo isku duubnida dhalinyarada Soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dib u dhiska magaalada idinkala shaqeynaa waxaa layga codsaday inaan halkan ka sheego in dhalinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berri ah in garoonkiina ciyaaraha la idin dhiso inta kalena waxaan idinkala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina markaan idin leeyahay waa dhammaatay waqtigii la cabsan jiray waqtigii la shakin jiray waqtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda Soomaaliyeed been u sheegi jiray
wakhtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas xun dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan marka waxaan leenahay haddii reer marko ay iska xoreeyaan cadowgii inta kalena maxaad isaga xoreyn weyseen sababta aan isaga xoreyn weyseen waxaan leeyahay waa inaad jawaab u heshaan halhayskii reer markood oo ahaa sax madow caanihiisa wixii caddeeyey cibaaro leh maaho cibaaradaas jawaabu hela cadowgana iska xoreeya waa mahadsantihiin reer marko waa idin jecelahay waa idinla taaganahay waa idin garab taaganahay waa mahadsantihiin